gudoomiyaha hay'adda diyaar garowga afooyinkii kaydka raashinka qaranka mudane Faysal Ali Sheekh Maxamed ayaa taasi u diray qoys uu ku soo dumay dhisme ay deganaayeen kaasi oo ay ku dhinteen 4 ruux. Gudoomiyaha ayaa gaadhay goobtii Allah u naxariistay ay ku dhinteen qoyskaasi waxaana uu ka warramay sida ay wax u dhaceen. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Waxaanu marka hore taasi u diraynaa 4 qof ee ku geeriyooday maanta halkan Birjaax oo runtii uu ku soo dumay guriga aad arkaysaan ee gaboobay oo xalay abaaro saqdi dhexe waa bariga u dhaweyd sida ay wararku noo sheegayaan ku geeriyooday goobtaasi qoyskaas oo ahaa aabihii magaciisa la yiraahdo Faysal Aadan Cabdi iyo hooyo Hinda Sheekh Ahmed iyo 2 caruur oo ay dhaleen oo ah Maxamed iyo Mukhtaar oo gabadhuna waxa la noo sheegay inay war lahayd inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. Taasi balaaran baan runtii ehelkii iyo qaraabadii iyo shacbiga reer Soomaaliland runtii aanu ka gaarsiinayna masiibadaas runtii dhibaatadaas ku dhacday qoyskaasi iyagoo hurda iyo qof waliba runtii de waqti buu leeyahay saacadunba tilmaaman ilaahayna waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno uu ka waraabiyo ilmaha yar oo hadhayna ilaahay uu ka cawil celiyo. waxaanu ku soo booqanay runtii goobtii dumistu ay dhibaatadu ka dhacday sida aad arkaysaan dadweynuhuna runtii ay soo booqdeen aad iyo aad baanu runtii masiibadaas oo xunahay guriga ku soo dumay iyagoo deganaa aqal boolaha oo ma garanaysaa beebe ah oo ku dumay iyagoo hurda. inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. geesta kale hay'adda diyaar garowga afooyinkii kaydka raashinka qaranka ayaa furtay tababar socon doona muddo 2 cisho kaasi oo ku saabsanaa istiraatiijiyadda diyaar garowga afooyinka ee heer qaran oo ay ka qayb qaadanayeen hay'adaha kala duwan ee laamaha dawladda iyo hay'adaha caalamiga iyo kuwa maxalliga waxaana tababarkaasi furay gudoomiyaha hay'adda diyaar garowga afooyinkii kaydka raashinka qaranka mudane Faysal Ali Sheekh Maxamed waxaana uu ka warramay ahmiyadda uu tababarkani u yeelan doono istiraatiijiyadda diyaar garowga afooyinka ee heer qaran. aad iyo aad baan runtii idinku mahad celinaya waqtiga fiican ee nasiiseen. ujeedada runtii shirkeenani waxa weeye in aynu eegno darisno wax ku darno wixii ka dhiman wixii dheeraada ka saari karno istiraatiijiyadda u diyaar garowga afooyinka ee heer qaran oo runtii mid loo baahan yahay mar walba ah. sida aynu la wada soconno runtii isbeddelkan cimiladu waxyaabo fara badan buu runtii nagu keenay oo ugu horeyso abaaro joogto ah iyo duufaano ama roobab ama floods waxa loo yaqaan daadad soo kordhay oo imika runtii muddooyinkii u dambeeyay aynu dhammaanteen ka wada warqabno in ku mashquulsanahay. sanadkan oo qura ilaa 3 goor ayay wax soo kaceen oo dhinaca badweynta Hindiya runtii ay ka soo kaceen. sanadkii horena tii dhibaatadii duufaantii sagare ee Dhiinmay dhacday waynu ognahay. tanna waa tan ilaa maantada runtii socotay. marka qaran ahaan haddii aynaan istiraatiijiyad iyo qorshe ka yeelanin waxa laga yaabaa inaan mar walba la daalaa-dhacno dhibaatadaasi. waxay u baahan tahay aqoon, waxay u baahan tahay daraasaad, waxay u baahan tahay qorshayaashii iyadoo qaranka Soomaaliland gacmaha is wada haysto international community-ga iyo local kuba runtii ay taageerayaan sidii aynu wax uga wada qaban lahayn. 48 saacadood ee ugu dambeeyay runtii dalka waxa ka jiray duufaan ka soo kacday dhinaca badweynta Hindiya waqooyiga badweynta Hindiya oo runtii dhinaca Puntland xoogeedu uu ku beegnaa innagana wax roobab iyo dabaylaba runtii ay naga soo gaadheen. degaano ka mid ah Soomaaliland runtii saameyn taban iyo mid toganba runtii ay ku lahaayeen. guud ahaan marka aad eegto roobab fiican baa ka da'ay degaamadii la filayay inay ku soo beegan tahay gobolka Sool iyo gobolka Sanaag iyo dhulka xeebta ah roobab wanaagsan. dhulka kale Togdheer Maroodi Jeex iyo awdal meelaha qaar roob shuuxoon aad u weynayn laakiin lagu qabowsaday ayaa ka da'ay ilaa iyo Salal oo saaka 6 barkii ilaa barqadii uu ka da'ayay beedhig uun runtii uu ahaa kaasina. saaxilna runtii roobab wanaagsan baa iyadana ka da'ay gobolka saaxil.
waxaan isweydiinaynaa markaa maxaa resultkeedu uu noqday, maxaa khasaare ah, maxaa faa'iido ah. runtii faa'iido badan way leedahay oo dee roobabkaasi runtii waqti December oo waqtigii jilaalka aynu ku jirno ayay da'een. faa'iido badan bay dhinac ayay ka leeyihiin, dhinacna runtii dee dhib ayay keeneen, inkastoo ilaahay uu inoo sakhiray oo aanay aad u weynin. tusaale ahaan degmada Laasqoray oo xeebta ku taala, dhinaca xeebta bariga ku taala, waxaa ilaa 12 guri oo isugu jira dhagax iyo carshaan ayuu dumiyey, ama qayb ahaan uu dumiyey. ilaa 5 laashoo dibadda la soo dhigay iyagana waa u qaaday inta aanu xogta ku hayno. ceelkii biyahana runtii waa uu waxyeelo u geystay, ceelkii biyaha ee Laasqoray. 2 qof baa runtii markii hore la tilmaamay inay dhinteen oo lala laakiin nasiib wanaag imika waxa la soo sheegay in la helay 2 qof meel gacan la yiraahdo oo 10 kilomitir ka xigta dhinaca bariga Laasqoray runtii laga helay oo ay nool yihiin 2 qof. dhinaca kale Maydh, tuulada Maydh iyadana runtii ilaa 20 guri oo dhismayaal iyo carshaan iskugu jira ayuu iyagana waxyeelay, qaarkood wada dumiyey, qaarna baart qayb ahaan dumiyey. riigiina waa ka jaban yahay, ilaa 7 laashna waxyeelo gaarsiiyey sida xogta la noogu soo dirayo, xogtii koowaad la noogu soo dirayo. xiis tuulada la yiraahdo iyadana ilaa 16 guri buu waxyeelo gaarsiiyey, dhismayaashoodii oo dhismayaal iyo carshaan bay iskugu jira. ceelkii biyaha solarkiina waa uu ka xumaaday. inahaasi waa inaha runtii khasaaraha. meelo kale oo runtii laga sheegayo xoolo iyo iyaguna way jiraan. mar labaad runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa dhammaan ka soo qaybgalayaasha. guud ahaan anagu runtii heega waxaan u ahay 48 saacadood ka hay'ad ahaan ku gobol jooga iyo ku halkan joogaba in aanu ururino, la soconno xaaladda dalku runtii halka uu marayo. geesta kalena waxa iyaguna halkaasi ka hadlay mas'uuliyiin ku hadlayay afka hay'adaha ka soo qayb galay kulankaasi, waxaana ay ka warrameen doorka ay ku yeelan doonaan istiraatiijiyadda heer qaran ee hay'adda u diyaar garowga aafooyinka. Xamse Qurbaani, warbaahinta qaranka Soomaaliland, Hargeysa.